marka odayaashaani soo halkaa ma joogno waxa weeyaan dadka dembi bay ka geliyaan dastuurka dembi bay ka geliyaan xeerarka dalka dembi bay ka geliyaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadino saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiyo talabaan ka soo qabto iyo gudoomiyaha baarlamaanka arintan miyay gali karaan maya ruuxaan ku sheegi karaa sabab dhammaantood waxay ka geliyaan xagga odayeynta bay ka geliyaan markii arintu sharci noqotay gudoomiye Saleebaan ma metelo golihii waa shakhsi waa gudoomiye way miyana xasaanadii golaha guurtida oo dhaweeyay gudoomiye golaha guurtida qodob ma bedeli karo qodob sharci ma bedeli waa la isla waafaqsan taas way talaga hadlay madaxweynuhu wuxuu taagan yahay xeerkii waa kan xeerkii waa kan waa xeer 14 cid Allah cid hadlaysa ee soo saaraysa xeer kale oo ummadda tusaysa TV-ga ka tus way gudoomiye gole ma haysto xasaaniyada codkooda ma haysto inuu dhaho waxaasa khaldan iyo waxaasa saxsan ma haysto oday waxa weeye mesela golahan waxa loo dajiyay sharciga xeerka ku taala waxa ay awoodoodu tahay awoodda goluhu ku egyahay imika doctor Gaboose ma waxaan ka qornaa odayaasha dhaqanka iyo xalka Soomaaliland iyo isku tanaasulka iyo wada tashiga ku qoran dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee oranaya Soomaaliland waxay ku caanamashay oo ay ku dhisan tahay isku tanaasul iyo wada tashi ayaad meesha ka saaraysaa leedahay odayaasha dhaqanka iyo guurtida iyo wakiiladu xal iyo wada xaajood ma keeni karaan Soomaaliland ee sharci un ba shaqeynay haddaad ogoshahay Soomaaliland in intaas looga noqon karo adaa saxsan Soomaaliland jiritaankeeda waxaan uga jeedaa hal qodob baan rabaa inaan ku fahansiiyo qodobka oranaya Soomaaliland waa muqaddas dastuur bay ku qoran sidii loo ilaalin lahaa dastuur bay ku qoran odayaashii baa yimid gudoomiyaashii baa yimid madaxweynaha waxay ku yiraahdeen qodobka arintiisa noo igmo aan go'aan ka gaarnay ma waxaad iga dhaadhicinaysaa odayaashan karaamada leh inuu u igmado weysay go'aan uga gaaran madaxweynaha qodob sharciya uu igmado may weydiisan odayaasha waa qodob sharciya isagii baa odayaasha laftoodu may weydiisan qodob sharciya madaxweynuhu inuu u igmado madaxweynuhu markuu yiri arintani waa arin sharci sugde soo kuma dhamaysto ma ay dhageyso odayaashii cid kasta aatay markuu yiri arintani waa arin sharci waa qodob sharci way marka maxkamad buu ereyga waa sharci markuu yiri macnaheedu waxa maxkamad baa gali kartaa goormay noqotay arrin sharci ma markii wada hadalkii la furay ee la dooday ee dhinac walba doodiisa keensaday ee la dhageystay ee odayaashu isku keeneen ee la isku soo noqday ee intaas Soomaalimood la ballamay ee intaas war saxaafad la soo saaray ma markii ugu dambeysay ee danihii isdiideen ayuu qodob sharci noqday muxuu markii hore u noqon waayay madaxtooyada iyo ambassador iyo meel walba lagu kulmayay ee la isku soo tanaasulay muxuu qodob sharci u noqon waayay ee marka wada hadalka loo xiri waayay madaxweynuhu waxaan ku yiri sanad dhan buu wuxuu wadaa waa sharci waana fulinay waa sharci waana fulinay maxkamadiina way soo qortay gacantan wuxuu ku hayaa tii maxkamaddu ku amartay gacantan wuxuu ku hayaa 14 intaasoo jeer buu ummadda hor keenay waa sharci madaxweynuhu gobashan uguma yeerin inuu odayaasha karaamada leh uu ugu igmado inay sharciga bedelaan wuxuu ugu yeeray inuu qanciyo arintan la isku hayaa walaalayaal waa sharci cidii wax ka qabta maxkamadda